السلام عليكم داود maanta kusoo dhawaada video kale oo idin soo gudbinayo channelka Somalitation daawadayaal hadaba videogan cusub ee maanta waxaan ku baran doonaa saddex application oo mobilekaaga ku jeclaysiin doona taa macnaheedu daawadayaal waxay tahay saddex application oo mobilekaaga ku soo kordhin doona waxyaabo aan hore u lahayn ama faa'iidooyin aan mobilekaaga hore u qaban jirin ku qabanaya hadaba daawadayaal saddexdan applicationka koowaad magaciisa waxaa laga yaqaanaa Wave Keyboard applicationka labaadna waxaa laga yaqaanaa Fonto applicationka saddexaadna waxaa laga yaqaanaa Touch Retouch haddaba daawadayaal saddexda application ayuu maanta casharkeenu ku saabsan yahay ee aynu gudagalna videoga ee kusoo dhawaada fadlan daawada inta aynan bilaabin casharka haddii channelka hore subscribe saarin subscribe taabo kabacdi markaad subscribe saarto waxaad sii taabataa jeliska yar ee notificationska si video walba cusub kuu soo gaadho haddaba daawadayaal applicationka ugu horreeya magaciisa waxaa laga yaqaanaa Wave Keyboard daawadayaal applicationka amaba saddexda application linkiyadooda videoga hoostiisa ayaad kala soo degaysaa kabacdi marka saddexda application la soo degto applicationka ugu horeeya Wave Keyboard sidaas ayaad ugu dhufanaysaa kabacdi loading ayuu yaroonaya wad yara sugaysaa markuu yara idhaahdo kadib waxaad ku dhufanaysaa raaca casaanka saa markaad ugu dhufato kadib waxaad kasoo dhufanaysaa Wave Keyboard kaa hoose ayaad geynaysaa kabacdi markaad kaa geyso kaa greenka imka saxda ah ayaad saa ugu dhufanaysaa kadib applying theme ayuu odhanayaa kadib markuu ka baxo waad iskaga baxaysaa waad ka noqonaysaa markaad ka noqoto halkaana extend ku dhufanaysaa kadib waxaad tegaysaa halkaa menuga kadib waxaad geynaysaa customization halka ku qoran tahay kadib activate custom font halkaa ugu sareysa ayaad saxaysaa kadib hoos ayaad u wadaysaa waxaad dooranaysaa farta loo yaqaano Plofina farta la dhahdo Plofina ayaad dooranaysaa kabacdi waad ka noqonaysaa kadib markaad ka noqoto waad iskaga baxaysaa applicationka markaad iskaga baxdo waxaad tegaysaa meeshii aad wax ku qori jirtay miimada si aynu tijaabino applicationka kabacdi waad aragtaan quick menu ayuu ku saari doonaa kadib waxaad odhanaysaa saas ayaad ugu dhufanaysaa kadib haddaad doonaysa inaad wax ka bedeshaa amaba aad keyboardka yara dheer isagu gaaban yahay halkaa wave ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa kabacdi resize ayaad ku dhufanaysaa kadib saas ayaad u yara dheerayn kartaa markaad yara dheerayso kadib saas ayaad u dhufanaysaa sidoo kale cod waad u samayn kartaa markaad qoriso iyo gariir labadaba markaa waynu samaynay labadiiba hadda waynu eegno waad aragtaan codkii waa kaa uu samaysmay Cabdulle Maxamed aan ku qoray waanad maqlaysaan codka baxaya sidoo kale codka waad bedeli kartaa oo applicationka aad ku noqonaysaa kabacdi markaad Wave Keyboard ku noqoto waxaad ku silfanaysaa halkii menuga kadib sounds ayaad ku dhufanaysaa kadib kaad rabto ayaad dooranaysaa ama buildingka ama bulletka rasaasta ama frograha kaad doonto ayaad dooran kartaa laakiin anu kaas aan ku deysanayaa default ah kadib daawadayaal applicationkana waa applicationka sidaa ku caawinaya sidaas ayaanad uga faa'iidaysan kartaa applicationka daawadayaal haddaba applicationka labaad magaciisa waxaa loo yaqaanaa Touch Retouch isagana linkigiisa videoga hoostiisa ayuu yaalaa kadib markaad isagana la soo degto ugu horreynta sidaas ayaad ugu dhufanaysaa kabacdi markaad sidaa ugu dhufato permissionka wada ogolaanaysaa oo allow ayaad ku dhufanaysaa kadib tutorial ay ku tusi doonaa ama sidaad u isticmaalayso kadib get started ayaad ku dhufanaysaa kadib haddana permission kale ayuu ku weydiin doonaa allow ayaad isagana odhan doontaa wada ogolaanaysaa kabacdi markaad sidaas ay kugu soo baxdo waxaad ku dhufanaysaa daawadayaal applicationkan haddii aan idin yar faahfaahiyo waxa uu qabto waxa uu qabanayaa inaad sawir walba unwanted substance-ga sawirka ku dhex jira aad rabto inaad ka saarto aad ka saari karto daawadayaal si aan u jawaabin waxaan ku dhufanaa halkaa ku qorantay albums si aan idiin tuso sida looga saarayo kadib waad aragtaan sawirkaa shimbirta ah ayaan dooran doonaa kikaad doorato imika waad aragtaan sawirkaa shimbirta ah ayaan doortay shimbirta ayaan meesha ka saari rabaa amaba shimbirtaas ayaan doonayaa inaan meesha ka saaro oo aan ka baabi'iyo waxaad ku dhufanaysaa halkaa hoose object removal ka qoran tahay kadib brush ayaad kusoo dhufanaysaa kadib inta shimbirta ku fadhido ayaad saa u calaamadinaysaa kadib markaad sidaa u calaamadiso lugaheedana saa u calaamadso baalka ayarna saa u raacayso iyo madaxa yar kadib go halkaa ku qoran tahay aad ku dhufanaysaa
kadib processing ayuu oranaya waad yara sugaysaa waad aragtaan shimbirtiis yaroo fudud aynan meel la taaban ayay uga baxday sawirkii kaasina daawadayaal sidaas ayuu ku caawinayaa waana application faa'iidooyin badan leh oo aad wax kasta aanad rabin haddii imika sawirka uu qof kale aanad rabin kugula jiro waad ka saari kartaa application waa applicationka sidaa ku caawinaya haddaba daawadayaal applicationka saddexaadna magaciisa waxaa loo yaqaanaa Fonto applicationkan isagana linkigiisa videoga hoostiisa ayaad ka helaysaa kabacdi daawadayaal markaad soo dejitay sina applicationka ugu horreynta sidaas ayaad ugu dhufanaysaa daawadayaal haddaba applicationkan haddaan isagana idin faahfaahiyo waxa uu qabanaya waa application ay ku jiraan faro aad u tiro badan ama waqti kala duwan ayaad ka helaysaa oo aad qori karto ama wax ka rabto haddaba daawadayaal si aad u isticmaashaad ku dhufanaysaa halkaa yar ee calaamadda galleryga oo kale leh kadib waxaad ku dhufanaysaa load new image from device kabacdi waad yara sugaysaa loading ayuu ku jiraa kadib galleryga ayuu ku geynayaa amaba sawiraantii kuugu jiray gallerygaaga ayuu ku geynayaa kabacdi waad doonaysaa sawirka waxaad dooranaysaa sawirka aad rabto iminkoo kale sawirkaas ayaan dooranaya anugu kabacdi markaad doorato loading ayuu yaranayaa waad sugaysaa kadib markaad sugto waxaad ku dhufanaysaa halkaas sare ee qalinka ah si aad ugu dul qorto wax walba ood rabto daba daawadayaal iminka waxaan ku qorayaa ayoo kale new play store halkaan aan ku qorayaa cajiib kadib font alyaaliya font aad rabto ayaad dooranaysaa halkaa font ku qoranta aad ku dhufanaysaa kadib waad yara sugaysaa markuu loading idhaahdo applicationka markii ugu horeysay ee la furo markaad yara sugaysaa kabacdi faraha wada aragtaa faro aad iyo aad u tiro badan ayaa ku jira iminka farta Peter Paul la yidhaahdo Ambledorto kadib oo dhan ayaad odhanaysaa kadib dhan markaad tiraahdo halkaas size aad ku dhufanaysaa kadib minuska ayaad saa u haynaysaa amaba waad la dhacaysaa ama waad haynaysaa waad aragtaa sidoo kale colorka waad bedeli kartaa oo stylekii qoranta aad ku dhufanaysaa coloranta halkan ayaad ka bedeli kartaa amaba kaas ayaad saa u jiidi kartaa kaana waad badin kartaa oo akhtar ayuu noqonayaa amaba kaana saad badin kartaa buluug ayuu noqonayaa markaa daawadayaal applicationkan waa applicationka faraha aad tirada badan ku jireen aad ku isticmaali karto wax walba aad rabto aad ku qori karto applicationkana sidaas ayaad isigana uga faa'iideysan kartaa haddaba daawadayaal videogan maanta intan ayuu ku eegyahay waxaana idiin soo diyaariyey idinla socodsiinayay aniga oo Cabdulle Maxamed Mooge isla mar ahaantaana ah mulkiilaha channelka Soomaaliya Edition daawadayaal haddaba haddii aanad channelka hore subscribe u saarin subscribe saar fadlan sidoo kale haddii aad videogan uu ku anfacay fadlan like saar videoga sidoo kale haddii aad adu videogan ka faa'iiday si ay asxaabtaada kale uga faa'iidaan u share garee oo meel walba isleed waa lagaga faa'iidayaa sida WhatsApp-ka groupada maxaa yeelay Facebook Twitter-ka meel walba aad isleed waa lagaga faa'iidayaa ama qof walba isleed uu ka faa'iidayaa aad jeceshay videogan u dir haddii aad ka faa'iido weeyaan daawadayaal haddaba videogan intan ayuu ku eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh